markan waa ka Liverpool Alexander Arnold markale waa ka Durba waryahay Durba maxay tahay warwar waad iska ogtahay markay Liverpool iyo Tottenham ciyaarayaan war final jamliigo markii gambarkan dhiganayno hor laga helayba nimanka waa la bobsiyaa maxay yiri todobadii ciyaar la soo dhaafay oo ay labadanu ciyaareen Liverpool ayaa ahayd kooxda badinaysay waxa leeyahay kollay haddaad saan u sii jeefto xataa ma sitid arabtid ku iibsato ama kooxo raweyn aad rabtid ku iibsadaan kuma iibsanayaan oo yaa iibsanayay nin ma taqaanaan si fiican u ciyaarin baa la leeyahay marka waa ka Estel afkore goolka Dali Aliano Ibrahim Kanuti ayaa diiday mooyaane mar kale waa kan Estel wababa habeenku maqaar baanu daawanayna walle waa Estel waa kan afkore goolka meel fiican Kane oh yes Tottenham والله والله bilaabay habeenko Harry Kane ayaana furtay akoonkiisa goolasha burhaantiisa kiciyay wareerka iska qaaday shushow baxyiriyo shuruga ku raaco super Harry Kane والله gool buu ahaa والله ninku shushka iska qaaday meel fiican buu kubadu ka helay ninka kan halka baa loo dhigay in Dembele Kane halka buu ka qaatay ku laaday goolka Alice Agmariyay Roinis habeen kala leeyahay dadna soo qaban karta naga doow imaada inkastoo uu ku fiicayn comeback iyo soo laabashada ciyaaruhu maalooda xataa Newcastle baa ka ganacsatay inkastoo laga day ka doow imaadeen Dembele Allah muxuu ahaa baas fiican dhameystir wanaagsan aniga kacsaday Harry Kane aan u dulqaato ilan waan kii aan lahaa waar bariyuhu waa ka taalaaye haddaadan iskicin kooxdu kuma doonayaan Anthony waxaan ku taqaanaa yes wuu waalanaya dabaaldag buu la dhimanayaa wuxuu yiri kooxda markuu imaanay wuxuu taqaanaa kooxdan waxay ka dhimatay macnaha xamaasadda ku wareejinaa uu macnaha wuu ku dhex waalanaya guusha isaga dabaaldag waa ka habeen weyn meel fiican waa kan Mow geeska waa kan Salah afkore goolka waan dareemayaa nimankan Liverpool haddaad goolka nooca dhali kara Spurs meel baa lagu wada baan maleynaya no sacab uu leeyahay Dali oo waa ka isagu waa laga qaadayo marka uu heli karaya caawa Liverpool waxaad u maleynaysaa in difaaca dambe ka behelhaysan tahay yaa Matip iyo ninka la yiraahdo Ibrahim waa la gaadgaadi kareed isleedahay markan waa kan Robertson meel fiican waa kan Mane geeska waa kan James Miller lag iyo wax balay weeyaan maanta kama jeesanayaan wala Liverpool hal gool lagu celin karo in lagu fardhinayo mooyee markan waa kan waa laga qaaday Estel meel fiican baa loo dhigay Ronaldo Kim buu dhiban karaya ee turbuleeyna yarka wallahi waa la tuuraysan Sonia goolka oh no inda yarkii ugu xumaa aan wiligay arkayo inay ceeb ma keeni jirine ilmaha waa u dhumaad iska dhaaf son goolka intuu la kortagay ayuu goolka khasaariyay caawa ya maya walla fursad dahabi oo weyn bay ahayd waxay kuwa kan u lumiyeen meel fiican baa loo dhigay Ronaldo Kim buu dhiban karaya ee turbuleeyna yarka wallahi waa la tuuraysan Sonia goolka oh no inda yarkii ugu xumaa aan wiligay arkayo inay ceeb ma keeni jirine ilmaha waa u dhumaad iska dhaaf son goolka intuu la kortagay ayuu goolka khasaariyay caawa ya maya walla fursad dahabi oo weyn bay ahayd waxay kuwa kan u lumiyeen fiican waa kan Jota Estel mar kale waa kan Robertson gool bay noqon kartaayo oh yes Jota Diego goal 1-1 hey waka wala daalaya mooyaane kuwan goolka laga ilaashan karayo waxba dhahaya ma dhimanayaan wakaya gool waa ka sadintan Liverpool goal Tottenham goal iyaga goolkooda qasaariye ha u dulqaataan Liverpool ma dhintaan baa leedahay wixii hadda ka dambeeyay u fiirso waa loo yaabaa Spurs Then all of a sudden Ben Davis can't really deal with that. Diego goal waa sanadkiis ugu fiicnaa waayihiisa weeyaan. But the clip ball in from Andy Robertson is brilliant. Wariya caawa waxa la ciyaaray Alisson kuwan. Wallahi aniga goolan sugayo Liverpool xageeda ka yimaada caawa bal arka meesha wax ka dhici doona. bal arka meesha waxay Liverpool sameeysaa hadda wili arkays Liverpool gool laga dhaleeyahay iyaga badan raba iska dhaaf caawa markan waa Diego Jota and Robertson Diego mar kale gool Jota still Salah walla waa yar bixiyay Arnold oh yes laba gool and Robertson hey wakaas markii baan ku lahaa weerarkii baa socday goolkii baan yimaaday Liverpool laba gool Tottenham gool warigood waxba ka bartaan waa ka
Spurs waxay ku doodayaan goolkii hore goolkii labaad baana lagu shubay wal Dali Ali faulkiis bay fiir war hadda kor Liverpool Man City baa qalad ka qeylinaysay gool laga dhaliyay macnaha Man City qalad ka qeylinaysay gool laga dhaliyay macnaha haddana fiir Tottenham gool ka qeylinaya gool laga dhaliyay Liverpool way labaysay habeenka ciyaarta ma ogaan kartid koox war Liverpool waa balaayo war Liverpool laba ceshto wallahi waa ka ilma ciyaaray bay ahaayeen Spurs habeenka waana ka loogu shubay kan gish baa la siiyay Evidently Liverpool the likelier now that they have a lead. Truly is a story that Ways bal fiiri meesha waxa ka dhacaya way u qalbeen maxaa yeelay iyaga ayaa ciyaartan u haysta kuwan isgadgaad bay ku ciyaarayeen alla inaysan dhimanin bal fiiri Liverpool ma dhintaan ilaahay amarkii haday kuwan dhimanayaan ma dhimanayaan habeenku dhan waa la dili waayay ka war ya markal waa kan Spurs habeen waa kan haya son Oh, Tottenham! Son! laba gool ayaa marka laga dhigay ciyaarta. Difaaca Liverpool caawa laba hayo. Isla markii Alice ugu dambeyntii waa laga dhaliyay. Nin bay luminayaan. Son baana gool ku dhan habeen ku dhaliyay. Wallahi fantaaj meesha laga tabay. Maqaar baa la ciyaaray markaan halkaas baa soo loo dhigay. Mar dambe qalad kale ma galay uu leeyahay. Gool hayu waa la wareystay no isaga yar ka hoos baxday kadib goolka looga dhaliyay He's always on the edge of the box, Alisson. He's always there or thereabouts to mop and sweep.